waxaan safar ku soo maray dhawaan oo aan muddo kooban ku maqnaa deegaamada gobolka Togdheer ee waliba dhinaca hawdka sida degmooyinka Duruqsi, Dhoqoshay, Waraabeeye, Riyo Xidho, Beledhiig, Warcibraan, Nasiye, Qorlugud, deegaanka Coodanle, Qoryaale, magaalooyinkaas ayaan soo marnay waxaan ku soo aragnay baahiyo asaasi oo ka jira deegaamadan maanta tagay waxa kamid ah deegaanka Coodanle male waa nation aad u fara badan mana leh wax rug caafimaad badan dad aad u fara badan baa jooga iyadoo waxaad moodaa inaanay Soomaaliland ba waligeed aanay tiin oo ay Puntland ka tirsan tahay saaruntii deegaanka waxaan leeyahay si degdeg ah wax looga qabto degmada Duruqsi oo kale waxa ka jira saldhig bileys male waana degmo in badan muddo badan soo jirtay geed baa dadka lagu xidhaa Duruqsi waxa kale oo ka fadhiya gaariga ambulance-ka oo 18 tuulo iyo deegaamada kale hoos yimaadaba ka shaqeyn jiray ama deegaamada kale ku dhowba ka soo qaadi jiray dadka halka waxa ka imanaysa in hooyadii iyo dhalaankii waxba loo qaban waayo ambulance-ka markii soo qaadi waayo degmada Dhoqoshay ka dhacday in laba hooyo isku nus saac gudahood naftu kaga baxday dhiig bax markii loo waayay gaari ambulance lagu qaado xanaanada Dhoqoshay isla bishan aynu ku jirnaa tobnaad gudaheedii deegaamadu way wada qabaan baahiyaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada intooda badan way wada qabaan laakiin waxba u sii dheer deegaanka ugu foo kale dirsan degmada Gabagabo iskuulkeedii waa baaba dabayl baa qaaday wadadiina waxa ku dhacay dhagxan waaweyn dadkaasi go'doon bay ku jiraan meel ay u irkadaan ma haystaan xukuumadda gurmatana ma haystaan gudoomiye Doob waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool kaamanka barakacayaasha Burco waxaanu madaxweyne Biixi ku eedeeyay inuu ku guul daraystay inuu soo buuxiyo booska gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer oo muddo ku dhow sanad banaan magaalada gudaheeda waxa jira dad barakacayaal ah oo si runtii maxay tahay mudan in si dhow loola socdo deegaamada barakacayaashii iska daaday kale biyo ma helaan oo ay ka mid tahay kaamkan jaamacadda Burco oo ka mid yahay qolo la fogeeyay oo iyaguna aad u cabanaya oo si runtii magac la baxay la yiraahdo Abaal Muuse xaafadda la Samiriye Iimaan oo iyaduna ay maxay tahay deegaamada dadka barakacayaasha joogaana deegaanka Furfuriisayga oo isaguna deegaan aadan Saleebaan la gudboona jaamacadda Caynaashe deegaamadaasina si runtii dib weyn baa haysata dadkaasi in loo gurmadaa bay u baahan yihiin wax qabad baa nooba muuqanaynba siiba gobolka Togdheer nimanka ka hadlayo wax qabada oo ka socda oo maanta aan oran karo uu ka hirgalay ma jiro waxa jira barasaab ku xigeenka gobolka xataa aan xukuumaddu may soo magacaabin barasaabka gobolka wuxuu awoodi kari laayay inuu u baxo safar meel ku gaadho waayo isagoo shaqo haya haddii shaqo kala soo dhacdo cid shaqadii kaga taga ma hayo ma garan karayo madaxweynuhu gobolka Togdheer ee inta baaxadiisu leegtahay inuu ku haleeyo barasaab kaliya inuu joogo oo ku xigeen loo magacaabi kari waayo 10 bilood miyuu ilaaway ma dambaanu kala hayn ma burcu u arkaa in barasaabku kaliya ku filan yahay ma fahmayo qorshaha madaxweynaha ka jawaabi doona isagana xilkii mas'uuliyaddu saaran